kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamkaba oo aad kala socotaan barteena Hiran online wararkeena waxa ugu waaweyn maanta oo Khamiis ah Mareykanka oo ku baaqay in la dardargeliyo doorashooyinka Soomaaliya sanad guuradii afraad ayaa laga jooga qaraxii dhimashada badnaa ee Zoobe ee magaalada Muqdisho ka dhacay 14 Oktoobar 2017 waxaan kaloo eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee Weerar loo adeegsaday qaanso iyo fallaar oo ka dhacay wadanka Norway anse ku bilownay dowladda Mareykanka ayaa carabka ku adkeysay in loo baahan yahay in la dhameystiro doorashooyinka Soomaaliya isla markaana si degdeg ah loo dhameeyo khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xafiiska arrimaha dibadda dowladda Mareykanka ee Afrika ayaa sidaas sheegay kadib kulan ay wada qaateen wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud iyo kaaliyaha xogayaha Mareykanka ee arrimaha Afrika kaaliyaha xogayaha Mareykanka ee arrimaha Afrika ayaa carabka ku adkeysay in loo baahan yahay in doorashooyinka Soomaaliya la dhameystiro sanadkan si looga baaqsado dib u dhac dambe oo yimaada wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa isna sheegay in kulanka uu la qaatay haweeneydan u qaabilsan Mareykanka qaaradda Afrika uu ahaa kulan wax ku ool ah oo looga hadlayo horumarka Soomaaliya ay gaartay iyo arrimaha doorashooyinka wasiirku wuxuu xusay in Mareykanku uu yahay mid ay ka go'an tahay nabadda amniga iyo barwaaqada Soomaaliya docda kalena sanad guuradii afraad ayaa maanta laga joogaa markii uu dhacay qaraxii ugu dhimashada badnaa Soomaaliya ee 14 Oktoobar 2017 qaraxaas ayaa waxa uu burburiyay hanti badan iyadoo ay ku nafwaayeen boqolaal qof oo aan waxba galabsan in ka badan 600 oo qof ayaa naftooda ku waayay ka gadaal markay gaari xamuula oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa lagu qarxiyay isgoyska Zoobe oo halkaasi oo ah meel aad u mashquul badan oo boqolaal shacab ay ku sugnaayeen dowladda Soomaaliya ayaana sanad kasta u sameeyay baroordiiq lagu xasuusanayo dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxaasi oo saameyntiisa aad ay u ballaarneed walina ay jiraan dad aan ka bogsan raadadkii uu ka tagay guud ahaan marka la isku daro dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay qaraxii Zoobe waxay gaarayaan in ka badan 1,000 qof ilaa hadda ma jiro cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi laakiin dowladda Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigtay oo xukun dil ah ku riday shakhsiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo qaraxaasi ku lug lahaa xubno hore uga tirsanaan jiray Al-Shabaab oo ka soo goostay ayaa cadeeyay in qaraxyadaasi ay ka dambeeyeen Al-Shabaab waxayna tilmaameen in kooxda dhexdeeda uu ka dhaliyay khilaaf aad u weyn oo aan banaanka u soo bixin si kastaba ha ahaatee qaraxa Zoobe kadib waxa Muqdisho ka dhacay qaraxyo badan oo waaweyn sida qaraxii 28 December 2019 oo ka dhacay isgoyska X-Control Afgooye kaas oo ku dhinteen in ka badan 100 ruux akhbaaraad kale caalamkana waxa ugu waaweyn daawadayaal 4 qof oo dumar iyo mid rag ayaa ku dhintay 2 kalena way ku dhaawacmeen kadib weerar ka dhacay wadanka Norway kaas oo loo adeegsaday qaanso iyo fallaar booliiska ayaa abaar 18 daqiiqo waqtiga maxalliga ah ee wadankaasi la soo gaarsiiyay warka weerarka ka dhacay magaalada Kunsb oo koonfur galbeed ka xigta magaalada caasimadda ah ee Oslo ee wadanka Norway nin u dhashay Denmark oo 37 sano jir ayaa loo xiray dhacdadaasi ay booliiskuna ay su'aalo weydiinayaan waxay sheegeen in dhawaan ay heleen dacwad ninkaas ka dhanaha oo la xiriirta in laga cabsi qabo inuu xagjir noqdo kadib markii uu diinta islaamka qaatay sida ay hadalka u dhigeen booliiska ayaa rumaysan inuu kaligiis falkaasi fuliyay waxa ayna baari doonaan in falkaasi uu ahaa mid argagixiso sida uu sheegay afhayeen taliyaha booliiska ee Norway ayaa shijraayad uu qabtay ku sheegay in dhammaan dadka dhibaatada soo gaartay ay ahaan u dhaxayso 50 ilaa 70 sano jir dhacdadan waa mid aad looga argagaxay ra'iisul wasaaraha Norway taas oo ka hadashay saacado ka hor intii aysan xilka ka degin waxaan fahmayaa in dad badan ay baqayaan balse waa muhiim in loo sheegay in booliisku ay xakameynayaan hadda ayay tiri waxaa la sheegay in ninkaasi uu weerar ka fuliyo gudaha dhismo laga dukaamaysto oo ku yaala dhanka galbeed ee Konsberg kaas oo lagu magacaabo Coop Extra dadka dhaawacmay waxaa ka mid ah askari fasax uga maqnaa shaqada oo suuqa ka adeeganayay afayeen u hadlay suuqyarahaasi ayaa markii dambe xaqiijiyeen fal halisa uu ka dhacay halkaasi wuxuuna intaa ku daray in shaqaalahooda aanay wax dhibaato soo gaarin sidoo kale saraakiisha ayaa baaraya haddii qofka weerarka soo qaaday uu hub kale isticmaalayay intii uu weerarka socday gudaana wanaga inta akhbaaraadka caalamka oo maanta Khamiis aad kala socoteen Hiran online barteena Facebook iyo sidoo kale YouTube-keena Hiran online intaan kulmi doono warkan kiisa xiga nabad